magacaygu waa Cabdirasaaq Cismaan Cali miisaaniyadda 2018 ee dawladda soo saartay horta waa arrimo aad u wanaagsan haday horumariyeen dhanka caafimaadka iyo waxbarashada laakiin waxa gaabis ka jira dhanka dib u dhiska dalka in lagu siyaadiyo miisaaniyadda waxaan kaloo ku beeran lahaa in shaqo abuur loo sameeyo dadka danyarta oo waxba haysan waxbarashada iyo caafimaadka aan awoodin in iska bixiyaan runtii waa ku faraxsanahay in miisaaniyad noocan oo kala la ansixiyo oo waliba maaragtay aan xataa loo kala harin runtii waxyaabo lagu farxayo waaye waana waxyaabo runtii markii la fiiriyo baahi aan u qabno markaan ku leeyahay waxyaabaha baahida aan u qabno waxa kamid ah waxbarashada kale caafimaadka kale iyo dabcan wixii la mid oo kale runtii waa waxyaabo bulshada udub dhaxaad u ah runtii waa ku qanacsanahay haddii aan nahay bulshada Soomaaliyeed waana soo dhaweynaynaa wax walba wanaagsan waxa ku qasbannahay inaan soo dhaweyno wixii xun inaan dhano wixii wanaagsan inaan dhano wanaagsan runtii aadan u soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay waan ku qanacsanahay waa xaalad fiican waa xaalad in lagu qanacmo mudan waa xaalad jiilku ka sii dambeeyo anficaysa macnaha aad u mahadsantahay miisaaniyadda la kordhiyay sanadan 2018 dawladda ay kordhisay waxaan loo kordhiyay dhanka caafimaadka iyo waxbarashada aad u taageersanahay waana soo dhaweynayaa waxaan rajaynayaa inay si kordhin doonaan waxyaabo kale ay ku sii dari doonaan dal soo kabanaya hadii waa in caafimaadka iyo waxbarashada horta kow inay helaan meel ay dadkooda aqoon ka helaan hadii xanuunsadaan kale meel ay caafimaad ka helaan waa dal burbur ka socdo hadii aan ka hadlay miisaaniyadda dawladda ay soo saartay 2018 waxa waaye inay sameyso infrastructure inay isto oo ay infrastructure laamiyadii airportladii in adigu ismay waxa laga soo biyo bacd meeliya caafimaadiyadii meeliya ardo faransi class in dana ayadana sameeyo iyo waxbarashada kala ka maqan oo ku biirinayo waxay tahay in ay dawladdu ay sii wado hawsheeda magacay waa Jamaal Cali Geedi haddii aan ka hadlay fikirkayga miisaaniyadda la ansixiyay cusub runtii waa soo dhaweynaynaa maadaama miisaaniyaddii hore ay ka badan tahay oo miisaaniyaddan la kordhiyay waxyaalaha miisaaniyaddan aan ku ammaanayaan waxaa ka mid ah horta in la yiri waxa ka mid ah waxa ku jira arrimaha dhaqaalaha caafimaadka iyo dhanka waxbarashada runtii waxaana laakiin waa ku dareen waana ku jirtaa maadaama ay ku jirtaa weli inay hirgeli doonto inay hirgeli doontina ayadana lama hubo haddii afka sheegtay baan u maleynaya maad saa ugu barnay dawladii dalka soo maray ama aan la soconay iyo siirada hore aan uga baranay haddii afka sheegtayna waa meesheedii runtii laakiin haddii sidaas ay jirto oo sida miisaaniyadda lagu xaqiijiyeen ku cad ay tahayna aad baan ugu faraxsanahay dhanka caafimaadka waxyaalo badan baan u qabnayo waa meesha kow dadku rabaa in wax laga qabto waxbarashada waa muhiim waxa anaga naafacaya sidaa darteed wasiirka iyo intii kala shaqaysay iyo barnaamijkan iyo soo agaasintay iyo maamulka dhammaan waa u mahad celinaya waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu